السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بصحاب تقاليق كحران ان بيوتي سو دواده هذا نقول سبتاي فضلا سبسكرايب لايك تنهلا دافني شيرتا iyo commentiga gambalelka yarna furaan majaliska sidoo taqaanid asxaabtadii hore noola joogtayna mar walba waan soo dhaweynaynaa maanta waxaan idin wadnaa wareysi aad ka heli doontaan oo aan ku wareysanayno qof kamid ah howlwadeennada NM Beauty waxaynu gudagali doonaa wareysigeennii halkan maanta waxaa inoo fadhida marti culus oo aan doonayno inaan su'aalo aad u adag oo muhiim ah weydiino iyo qaar iska faniyaba kusoo dhawow adoo magacaaga noogu bilaabaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد بان دي سو دوينيا دمان داوديا شيدا أنا أد كو احترانو مقاعي قوان نفيسة موسى دي سؤالها سنو حويان سؤال اللي يقو كذيه وحن رجيني أنا سيهين وقتواب إن شاء الله واسي وناكسن كل قارة كواتش الحسن بيسكو كتشران imika waxaan soo horeysiinaynaa horta kuwa muhiimka su'aalaha faniga way noo dambeyn doonaan nafisay maadaama aad ka mid tahay howlwadeennada NN Beauty ee weliba kuwa ugu hawsha ugu badan ka qabta asxaabtaada si aad isku barataan bal waxaad nooga warantaa waxbarashada heerkad ka gaadhay iyo halkaad ku baratay. الحمد لله أنا كنت وحن شوجا هرجيس سومالن هرجيسون بأنا كبرت وحبرش يضرن دكسيجو هو سكيد دحى كي سرق يجمع عدي بقى أنا كل ما يستبع هرجيسون ما كوض برتاي وأنا وذا ما يستاي صح waxaan doonaynaa inaan ku weydiino su'aalaad muhiim ah maadaama tahay hooyo dumar badan ay aaminsan yihiin mar haddii hooyo noqdaan inayna waxbarashada sii wadi karin waxbarashadaada ma waxaad dhammaysay oo aad soo gabagabaysay intaanad guri yeelan inaad hooyo noqonin mise adigoo hooyo abaad waxbarashadana dhinac ka waday. وما هوية أيان محوها جامعة نودي waxaan ku dhameeyay anigoo ilmahayga koobaad haysta alxamdulillaah wax caqabadana uma arkayo hooyadu haday xaamil noqoto iyo hadii la guursado iyo hadii ay ilmo dhasho toona qofka hadafkeeda waxbarashadiisa kama xiraysan u maleynaya صح وسوناكسن laakiin waxa u baahan tahay dadaal dheer iyo soomaha qofka waalidka iyo kale kulli kala hawlo badan yihiin كل تعب بدن وكجلي أدي هو هولك لا كسورية مسؤوليات بدقاتي مرك هدي قف كإنت حرية دي سيسكها هستا كل وقت كتعب بدن تهاي لكن قف البواسط وقولنا برأضيقه صح aad bad ugu mahadsantahay su'aashaas aad nooga jawaabtay waxa kale aan doonayaa inaan ku weydiiyo maadaama welina qof dhalinyaraad iska tahay maadaama hooyada haatida laakiin weli da'yar tahay oo dhalinyaro tahay qof kasta hiigsi buu leeyahay hiigsigiisa qayb ka midana wuu gaadhay qayb ka midana wuu rajaynayaa inuu gaadho marka hadafyada ugu waaweyn ee noloshaada aad isleedahay waad gaadhay imika maxaa ka mid ah. الحمد لله هرتها إن واحد بدنو كم يدوي يشرن واحد بدنو إن شاء الله أرجعني إن يجيبوا بيننا ويشرن صدق كله أنا جوحن كنعسك قريب كم إذا أنا هاي كنعسك وأرجعني شري وأنا قاعد الحمد لله صدق كله ها بس نسميه صدق كله فرس ماذا إن فرشحن ماذا يا قرحن تا يا سمينتا يدنو يهير كشيء وحياة بدنو كل دوما سميه أو قرحن تا هذا في ذو برشة الحمد لله هو يعني هاي أفرع عرورة هاي ستها ما شاء الله صح ما شاء الله واحد شري هدف يقلا قف كهرت لا ينتنول يا هدف وكمرة معه كواس وكوا وينيت قاعدي إن ذو برشة سوق بقبيسة الله هرشام عدد إن كستوين وح برشة دمان إن هاي كبر بسنسة أو عدل هاي بسنس إن هاي قف حرفة ذلك أو محي هذي وحيابها الأبو رسمين كريو كعنتي سكو سمين كراس ذا قرحين تي وحيابك اللي ميت كلام هي من دنيا إن كويديو محا ولي أترجين سينة قاعدون الله شهير كي والله هرتها نولش هيكس يو هرمرتونا كمرة معدن بقى ما أنت هدف كده هدف كلا دون سنة قاعدو مركز ميت قاعدنا ميت كلا كوري مانيا الدون باب الله لا الدون كنا ولا إريداون مركها إن شاء الله ورجيني هدف يدي أنت كهدينا نقعد هدي هيدا كلن دوني أنا كويديو بالهرت أنت على يوتيوبر كنقل فكر سداية بتكامل سنة قف كون السوشيال ميديا فكر كيس كوسو قد بيو أما يوتيوبر نقطة أما social media dhan inuu qofku ka hadlo fikirkiisa bulshada la wadaago sidoo arki jirtay
والله أنا دي قف هرت الريب وأركان لكن أنا قديب وين يقوم هايسو السوشيال ميديا هلا بنوع كلا dad waxa weeyaan dad qof wax faa'iido la keena ama ha noqoto wax laga baranayo ama ha noqoto cilmi diineed ama ha noqoto macalinimo qof walba waxbuu ku soo bandhigaa ama xirfad baa ha noqoto dadka qaarna waxay jecel yihiin dadka inay dee ku qosliyaan oo iyagu ay wajigooga la barto ama dee ay caan ku noqdaan iyagu naftoodu marka ninba si u aragay aniga dadka muxuu ahaa faa'iidada inta badan ka qaadata ayaa muxuu ahaa fikirkaygu yahay oo aan jecelahayna marka ha kulli waa seef laba af leh marka dadka qaarna waxay sameeyaan inay dhinaca xun u adeegsadaan dadka qaarna dhinaca wanaagsan marka waxa badan ba dadka dhinaca wanaagsan muxuu ahaa u adeegsada faa'iidadeeda wallahi you can imagine waxaad ka helaysaa meediyaha social media haddii aad baratid laakiin waxaa barobaleena haddii aad isku qafisho waxun baad kasoo kordhisanaysa ood maskaxdaadii ku xidho taasaa dhibaataa صح marka muhiimadu waa inaad wanaaga saarto waan faanelka bal ka war fikirka youtube-ka goorma kugu dhashay laakiin ma ku hamiyi jirtay inaad noqotid youtuber muddo fog buu horta igu dhashay wax walo qofka uu niyadiisa ku jirana mar un buu hirgeliyaayo uu midho dhaliyaa youtuber anigu waan jeclaa inaan noqdo laakiin mararka qaar waan ii hirgeli jirin laakiin alxamdulilah way ii hirgashay صح waan garanay su'aalaha aad nooga jawaabtay su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay maadaama ay dumarku markay guursadaan aad uga warwaraan cunto karinta sidee baad isku haydaan cuntada iyada markay aad soo guursatay wallahi run ahaantii anigu cuntada ma aqoonin nasiib darana youtube-kani muu jirin صح imika dee ma aqooninba ma jirto youtube waa imika dhacdhac lagaga siiyaa may youtube-kan imika cuntadan san looga daawado dadku u barteen muu jirin oo sidan miidiyaha loo isticmaalo looma isticmaali jirin markaan guursaday aanu cuntada maan aqoonin runtii laakiin waxaan aaminsanahay oo dee runna ii noqotay qofku inuu idhaahdo waxaa ma aqaan inay been tahay waayo markay wax walba run ku hor yimaadaan diwaad waajahaysaa runtii alxamdulilah waanan ku guulaystay dee maantana waan bartay maanta ma odhan karo yacni xataa waxba igu adag waanu garanay maadaama aad noo sheegtay inaad farsamo yaqaantood waxyaaba badan samayso xirfadahaaga maxaa ka mid ah waxyaabaha adigu aad hal abuurtay marka aqoontan kale la baranayo laga yimaado waxyaabahan sameeya waxaa ka mid ah qalabka guryaha lagu sharaxdo kadaradu ka mid yihiin ubaxyadu ka mid yihiin caruurta oo kale biinanka timaha loogu xidho oo noocyo badan ah oo kala duwan anigu samaystay oon anigu curiyey girgirayaasha oon sida lagu sameeyo dabqaadyada loo yaqaano oo kale oo iyagana decoration u samayso sharax waan qurxiyaa oo waan hagaajiyaa marka waxyaabo badan badan ما شاء الله واحد هدبا adigoo asxaabteena uga faa'iideynaya xirfadahaaga bal ka waran xirfadu nolosha qayb intee leeg bay ka qaadataa qofka xirfada leh waxay doontaa ahaatee xirfad ama xinaha ahaato ama qurxin ha ahaato ama cunto karin ha ahaato yacni dumarku inay xirfada bartaan door intee leeg bay nolosha ka ciyaarta wallahi waxaan u malaynayaa nolosha 50% way ka caawinaysaa imika xinahan oo kale dumarku dee way la kadeedan yihiin oo wad aragtay iidiyo kale buuq baa dhaco koofeera la tagaa ilmaha tacab baa la marsiiyaa ilmahuna wuxuu habi ku noqdaa in xina loo mariyo marka in hooyadu iska barato way fiican tahay ilmaha guriga ugu mari karta xinahaas oo kale sidoo kale muxuu ahaa biinankan aan ku sheegayo kale hooyada aad bay u caawinayaan carruurta timaha loogu xidho waayo hooyooyinkeena Soomaaliyeed inta badan waxay xiiseeyaan ilmaha toobka ay u xidhayaan inay maro biinu ay u sameeyaan ama ay u xidhaan bay jecel yihiin kale xitaa marka ay gabadh dumarku qurxisanayaan halka ay ka soo iibsanayaan kadaro ama alaab badan ama dee hawlo badan kale ka galayaan iyada gacanteeda wax yar oo design oo qurux badan ku samaysan karta midda kale xagga ka dhex galo xagga noloshana miyayna ka saacidi karin qofka waxaa dhici karta marar marxalada adag galo oo ama nolosha ku adkaato miyaanay noqon karin inuu ku shaqaysto noloshiisa ku dabaro hadduu xirfada barto maya wuu ku dabari karaa waliba 100% boqolkiiba boqol wuu ku dabari karaa dhaqaale ahaan oo u soo saaraysa waan isku caawin karaa qofku
صح haddaba hooyooyinka aaminsan fikradda mar haddaad hooyo tahay wax ma baran kartid haddaad hooyo tahay waqti ma haysatid fikrado badani ka dhex guuxayaan madaxooga maxaad kula talinaysaa ugu dambeyn hooyooyinka iyo hablahaba waxaan kula talinayaa sida hablaha aaminsan inaanay waxba qabsan karin ama haddii la guursado cuntadu ku xun tahay oo kale ama aanay hawsha guriga isku qaban karin ama ay waxbarashadoodu ay ka gelayso muxuu ahaa jujuub ama ay gaab ka gelayso ilaa qof ku noqonayso in aanay muxuu ahaa suurta ay gal u ahayn noqonayso waxaan leeyahay waxaasoo dhan ka gudba wax walba adduunka waxaan suurtagal ahayn ma jiro wax walba waa kartidaada iyo awooddaada sidii aad u qaban kartid marka waad dhigan kartaa waxbarashada hooyooyinka waxaan leeyahay idinka oo gurigeena jooga waad dhigan kartaan iminkana adduunkii tadawur baaba dhacay online baaba wax lagu dhigtaa gurigeeda jooga waad dhigan kartaa adigoo xaamila hooyo waad tegi kartaa goobaha waxbarashada ilmahaaga waad haysan kartaa xirfadaha waad soo kordhisan kartaa yacni uma malaynayo inay dhibaato badan oo dee kaa xijinaysa ilmahaaga uu noqon karo ama caqabad ku hortaagan ilmuhuna waa goolgooniya noloshaada kalena guusheeda iyo horumarkeega hooyo waad wadi kartaa صح waad mahadsan tahay ugu dambeyn maxaad nagaga sii tegaysaa laakiin maadaama bishii rabadaan foodo inagu soo hayso ilaahay ka rajeynayna khayrkeeda inuu ina siiyo ina gaarsiiyo waxyaabaha aynu u qorshaynay bisha rabadaan ama asxaabteena aynu isleenahay rabadaanta waad la wadaagi doontaan adoo soo gabagabeynaya dhammaan daawadayaashayda asxaabteyda qaaliga ah saaxiibaday waxaan idin leeyahay horta bisha rabadaan ilaahay khayrkeyga hayna siiyo ilaahayna caafimaad qab haynagu gaarsiiyo iyo baraare barnaamijyada aanu soo gelin doono bisha rabadaan insha allah waxaan rajeynaya inay rabadaanta idinka caawin doonaan ciidda idinka caawin doonaan yacnihi anagu waxaan ugu jirnaa social mediaha hooyo inaan idinka idin caawino si aad hooyo gurigeyga wax ugu qabsan kartaa aad u noqon kartid oona dee dibad wax uga baahan doonin dumar kolley dumarka inantuna waa hooyo unbay noqonaysaa mustaqbal hooyo unbay taagan tahay marka labaduba waa isku miduun marka waxaan rajeynaynaa insha allah inaad nagu xidhnaataan ood la socotaan fideoyadeeda insha allah صح waxyaabaha kale aan kusoo kordhin doonana waxaa kamid ah inaan wareysiyeero gaagaaban dad badan kasoo qaadi doono insha allah hadday noo suurto gasho sida dhakhtarada dad caan oo wanaagsan oo wax laga faa'iidayo waanad ku mahadsantihiin daawashada fideogan iyo kuweega horeba insha allah sidaa ay isku soo noqon wanaagsan